barnaamijkan waxaa la soo diyaariyey labada hay-adood ee Daryeel Autism iyo Fathers Network. Daryeel Autism saldhigeedu waa magaalada Leicester ee cariga UK. Fathers Networkna saldhigeedu waxa weeye Seattle, the US, Mareykanka. Waxaa nasiib wanaag ah in laba aqoon-yahan oo xildhibayaal ah oo arrimahan in badan waayo aragnimadoodana kusoo qaatay baaritaan badanna kusoo sameeyey in ay nala wadaagi doonaan aqoontooda iyo gaar ahaan iyaga wixii experiencegooda ah waayo aragnimadooda ah maadaama ay yihiin laba aabe oo dhalay caruur autistic ah. waxaan ku bilaabi doonaa hadduu ilaah yiraahdo Xamza Maxamed. Wuxuu degan yahay Mareykanka, gaar ahaan Seattle. wuxuu leeyahay wiil 18 jir ah. isagaa noogu warrami doona waxa shuklataha autistic ah. marka bal wixii ay isla soo mareen isaga iyo wiilkiisa, way aragnimada uu leeyahay, bulshada aan ka tirsanahay Soomaaliyeed sida wax u arkaan, wixii tala ah uu siin karo walaalihiis, intaba waa uga fadhinaa. waxaa ku xigi doona Haashim Ducaale. waa nin arrimaha bulshada aad uga shaqeeya, isagana degan magaalada Leicester dalka UK. Haashim wuxuu hadda kahor ku guuleystay bilada ay boqorada Ingiriiska bixiso ee layidhahdo MPE, Member of British Empire, uuna ku mutaystay howlaha uu communityga iyo bulshooyinka u qabtay sideedaba. waa idin soo dhaweynaya. ana magacayga waa Cabdiraxmaan Maxamed Abdidoon. hawshaydu waxa weeye keliya inaan xiriiriyo barnaamijkan xildhibayaasha iyo kasoo qaybgalayaashaba. aad iyo aad u mahadsan tihiin. hadalka hadda waxaan ku wareejinayaa intaanan ku dheeraanin walaalkay Xamza Maxamed. Xamza, mike adigu waa dhinkaan. horta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulligeen aad iyo aad baad u salaaman tihiin. marka aniga horta ugu horeyn waxaan labada afna waan ku hadlaa. af soomaaligana saas kuma fiicnin, marka waa isku wada daray af soomaali iyo af ingiriisi wax lay fahmayo insha allah. marka insha allah anigu de waxaan leeyahay wiil 18 jir ah oo marka ugu horeysay aan diagnosis ku sameynay wuxuu ahaa laba sano iyo bar sano buu ahaa. adigu 2 jir buu ahaa markaas. waa iska ogaanay inay wax jiraan, laakiin waxa weeyaan yudka miyay maqlaa? waan ku maqlaa. okay. marka waxa weeyaan horta waxaan markan ogaanay adigu wuxuu 2.5 years old buu ahaa markaas. waxaan dhakhtarkii baan geynay, wala diagnosis ba lagu sameeyay. marka waxay ahayd de waqti aanan inaku autism iyo waxay tahay man ogeyn, man garanayn. marka waxay noqotay so research baan ku sameeyay. de waxay noqotay de wax aad u weyn. markuu dhakhtarka noo sheegay, we had no understanding whatsoever exactly what autism waxay tahay. marka dabcan waxay badanka de waxii markay ku cusub yihiin denial baad ku jirtaa. denial baan ku jirnay for almost 2 years. waxaan malaha dhakhtarkan wax iska sheegayaan. de inakii baa iska dhaadhicinay waxaan inay wax jiraanba maaha. markaas de autism aad bay ugu yareed dalka Mareykan, especially Soomaalida. 18-20 years ago cidna may ogeyn waxay autism tahay. adigu wala kule xaal waxaan sameeyay marka research baan sameeyay just to understand what autism is, just to learn waxay tahay. taasna muddo qaadatay. welina dhinacalkii waan ku jiray. waxaan ka fikiray, waxaan siri malaha waxaan iska sheeganayaan wax jirana maaha. so we really have to understand exactly maxaad horta waxay tahay. markii researchkii markaan galay aan soo baaray, aan si fiican u fahmay. then wixii researchkiina marka intaan ku jirayna isagii baan eegayay
action kiisa iyo behavior kiisa iyo sidoo maxaa his regular growth development kiisa aan fiirinay waxaan arkay exactly waxay sheegay anigu waxaan research gareeyay inay wax jiraan waa just a neurological issue marka waxaan sameeyay horta khaladadan sameeyay aan maanta rabnay inaan meesha ka hadalno so that the new fathers inay khaladadaas inay iyaguna galin waxa ka mid ah waa denialism aad ka fikiraysid waxaan waxba kama jiraan or just keeping on the hush idna ha u sheegin Soomaalidana waa iska garanaysa badankeena waxay noqotaa wixii tabu iyo stigma bay meesha geliyaan iraadaan waxaan lagama hadli karo waxaan idna ha u sheegina waxa jira boolaal aabo isoo wacay advice raba oo swalo raba in swalo bay hayaan inay aniga weydiiyaan markay dambeeyaan waxay guraadaan laakiin other please waxa sameeysa labadeena ku ekaato idna ha u sheegin marka meesha waxa jira the stigma tabu waa meesha jira waxaan ka dhignay wax xun oo wax ceeb oo wax maxarada waan ogahay because of the society pressure iyo peer pressure ka inay meesha jirto laakiin waan ogaana haladadan sameeyay waxa weeyaan inaku the denialism ki iyo inaha u sheegin waxay noqotay the wiilkayga sidaan u caawin lahaa ayaa meesha ka baqnaaday because waxay noqotay inna ma sheegi jireen waan iska aamusi jiray waxaan siri malaha waxa laga yaabaa sanadkan inuu waxaan ka baxo laakiin autism-ka waa early childhood intervention markay gaadho waa very critical heerkaas marka lagu jiro waa marka ugu muhiimsan oo wax laga qaban karo marka adigu waa la kulli xaal just to summarize maanta meesha waxaan isku imi inay walaalaheena naga faa'iidaystaan inaku khaladada oo dhan aan soo sameynay iyo waxay aan ka soo baranay iyagu inay ka faa'iidaystaan ayaan jeclaan lahaa marka insha Allah halkaas ku soconayna magaceygana waa Hamza Maxamed Mareykan magaalada Siyaaran ku noolahay insha Allah Hamza haddaan su'aal ku weydiin karo waxaad noo sheegtay in muddo aad ku jirtay denial ama aad diidaneyd inaad qaadato in dhibkaas uu jiro ilmahaga in dhibka uu haysto maxaa keenay inaad ku qanacdo inaad denialka aad ka baxdo oo aad aqbasho xaqiiqda sida ay tahay yani waxa ku fududeeyay maxay ahayd actually waxay fududeeyay researchka markaan sameeyay researchkana muddan sameeyay adigu 2 sano iyo xoogaha ayaan ku jiray adigu dhaqaatirtay Google idiyaan garanay oo dhaqaatir oo waxaan fahmaya iyagii muddadan la hadlaya iyo qaar therapist oo wiilkayga loo qoray iyadana aad baan la hadlay aan si fiican u fahmo waxa meesha jira marka wixii markaan fahmay alxamdulillah markaas ayaan denialism haddana xaaskana waxay iyaduna aad u daraashay inay aniga horta iga tirtirto waxaan la yiraahdo denialism igu tiraado waxaan way jiraan we can continue to deny this we can continue to give it a blind eye just to have this false sense of hope when a madaxeena ka tirinta the only way aan wiilkeena caawin karno waa inaan horta ogolaana waxaan inay jiraan then try to seek the help iyaduna marka intaasi tiri marka waxay noqotay in aniguna maxaraday indhaha iska furo qalbiga iska furo ducaystay aan siri bal ilaahay daadee wax khayr ku jirta bal horta bal let me just accept this waxaa everything waxa weeyaan the beginning was acceptance wixii marka acceptance gasheed waxay noqonaysaa way ku fudaanaysaa marka alxamdulillah su'aasha igu xigta waxa weeye laba mushkiladood jirta la yiraahdaa mid waxa weeye adiga oo aan waalidka oo aan ogolayn inuu aqbalo xaqiiqda meeshaas ka jirta talabaadna waxa la yiraahdaa bulshada oo aad rabto inaad tusto inaysan waxaan jirin ama aad ka qariso xataa markaad ogolaato adiga inay wixii jiraan waxaan rabaa mid inaan hoosta ka xariiqo
Soomaalideena kaliya maaha mararka qaar waxaa la yiraahdaa Soomaalida xanuunku way isku caysaa qofka qaabka uu samaysan way isku caysaa waxyaabo saas oo kale ah anigu waxaan arkay waalidiin badan oo cadaan ah carab ah oo ku doodaya canug autistic dad soo wadato oo aad bas la soo raacdo ama dariiqa markaad la mariso cunugii haddii xooga ama qaylada uu badiyo ama dhaqaaqa uu badiyo dadka si xun ay ku eegayaan oo yani way kaasi karayaan waxay iska dhigayaan maaragtay marka saas darteed isan jeclayn inay carruurtooda soo wadaan bulshada soo dhexgeliyaan marka adiga markaad denialka ka baxday bulshada seed u arkaysa inay ku arkayaan ayagana wallahi waxay noqotay horta anigu I firmly believe horta maxarada markan open noqday aan wixii si fiican u soo bandhigay dadkan u sheegay dadkan la hadlay okay waxan bajira arinta bajira wixii fahmayana ay la soo xiriireen aniguna wixii aan fahmay dadkii aan la xiriiray waxay noqotay actually waxay noqotay dad badan ban inspire gareeyay dad badan oo hawshana ku jiray oo dibtana ku og ayaan inspire u furnay maxara ilbaaban u furnay iyaguna inay lana hadlaan maxarada iyaguna maxarada wixii aqbalaan because aaboyaal badan ban markaas oga iyaguna waxay ku jiraan the same khadkii aan ku jiray laakiin markan open noqday they reached out qaaran si fiican u garanayay laakiin inay caruur autism leeyihiin inaan ogeyn iyaguna waxay noqotay way soo waceen waxay niyahow arrinta hadda ku jirtay aniga lafteyda ku jira marka aad baan ugu faraxsanahay inaad ka hadashay arrintaas marka aniguna live Facebook live soo gali jiray maxarada qoritaan ba meesha soo gali jiray dadkii bulshada u sheegi jiray waxa meesha jira marka alxamdulillah maxarada horta dadkii siya dad badan ba oo hawsha ku jiray oo wax oo aamusana ba meesha joogay marka waxay noqotay it gave them an access. It made it a little bit easier for them to maharada to open up because they felt empowered and inspired. Marka way fiican tahay markan hadda bulshada oo kale maharada barnaamijkan oo kale aan wadano waxay ku fiican tahay at least dad badan it gives them the motivation, the inspiration to speak up iyaguna waxiraado inshallah alhamdulillah keligii maaha dad badan baa meesha ila joog now of course keliga ma tihid dad badan baa maxarada hawshan ku jira marka waan ka kulligeen waan iska faa'iideysan karnaa inshallah Hamza aad u mahadsan tahay waan kugu soo noqon doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo su'aalaha dib aan u dhiganaynaa aan mataqaana ka soo qaybgalayaasheena ay weydiin doonaan xeel dheerayaashan inshallah haddana waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo Dr. Hashim Ducaale sidaan hore u sheegayba waa nin arrimaha bulshada u ololeeya degan magaalada Leicester dalka UK wuxuu leeyahay ama wuxuu dhalay wiil 21 jir ah autistic ah bal Hashim way aragnimadaadii adigana bal xoogaa wax nooga taabo wixii su'aalna dib aan u dhigan doonaa insha Allah soo dhawo Hashim salaam alaykum وعليكم السلام runtii horta intii oo xamse sheegay khayr Allah siiyo intaas oo dhan waan la qabaa intan hadalka ku celin lahaa asaga wax badan wuxuu aad u sheegay marka ugu horeysa oo lagu sheego in adigana aad aragtid in cunugaaga uu delay ku jiro ama waxyaabo badan ay ka soo daaheen waalid ahaan waad walwaleysaa waxaad isku dayaysaa inaad fahamtid waxa yahay haya marka ugu horeysa waxa isku qancinaysaa sidii uu sheegay Hamza in waxaan ay yihiin delay ama soo daahid yar waxaad isku qancinaysaa in ay dad badan soo mareen waxyaabahaas oo dhan oo kan waxay keenaysaa marka hore facekan oo Hamza ku sheegay sida fiican denial face oo dhan waalidiintu ay soo maraan denial face kaas waxa ku xiga oo aad u muhiim ah oo dadka ay iloobayaan
kan ku xiga diidmadaas hore oo aad isdiidsiinaysid markaa lasoo dhaafo waxaa ku xiga facekan labaad oo aan u bixiyay acceptance face ilaa waalidka uu gaaro facekaas isagiina wuu jahwareersan yahay ilmihiina way jahwareersan yihiin acceptance faceka macnaheedu waxay tahay waa inuu qofkii aqbalaa xaaladan cusub oo ku jiro waa inuu qofkii aqbalaa arrintaasaa marka dad badan denialka iyo acceptancega inta u dhaxaysaba waqti badan dadka ka qaadata waqtigaasna waa waqti aada u muhiima oo runtii aan siduu xamse sheegay annaka ma aha inaan halkan lecture usoo fariisanay oon idin leenahay sidaan iyo sidaasaa fiican laakiin waxaan idinla qaybsan doonaa un wixii aan isleenahay dhaliilo oo aad waxaan waad ka gaabiseen marka kowda ugu horeysa waddanba gooni waaye u k hadda walow la yareeyey waqti dheeray ku qaadan jirtay inay sameeyaan final diagnostic ama ay kuu sheegaan laakiin waxaa furnayd hab ah in marka ugu horeysaba haddaad waalid tahay aada caruurtaada adiga aada mas-uul ka tahay oo aad u sheegi kartid waxaan afka qalaad lagu yiraahdo disability learning ama inuu ay wax jiraan oo aan la sii sheegin taas macnaheedu waxay kuu fududaynaysaa marka in irda badan oo dhanka caafimaadka dad waalidiin badan oo waxaan arkay sugaya oo dhahaya weli looma sameyn diagnostic laakiin ay u jeedaan in caruurtii ay u baahan yihiin kaalmo dheeraad ah taasna macnaha inay iyagu gacmihii iska xirayaan taasna waxay keenaysaa inay dheerayso waqtigii marka taas aniga ka waalid ahaan way soo martay oo sugistaas dheer waan fahmi karaa waalid kasta wuxuu jeclaan lahaa in markiiba loo sheego caruurtooda waxay qabaan balse haddii waqtiga kugu dheeraado mararka qaarkood cuduradan arrimahan oo diagnostica waa aaday u dheertay waxaa ku jira dad badan oo experta inay soo galaan taas markaa iyaynay kugu noqonin caqabad marka ugu horeeya aad dareentid waxna meeshaan u jira taas marka ugu horeeya aad dareentid ilmahaaga inuu u baahan yahay caawimaad dheeraada oo aada u jeedid inaanu hadlayn inaanu sidii caruurtii kale oona u dhaqmayn waxaasoo dhan waxaa la yidhahdaa in waalidkana waxaan mar walba kula taliyaa waxaan arkaa waalidiin badan oo aniga aan soo maray xitaa isku dayaya inay yareeyaan waxaasoo dhan ay dhahaan waxba kama jiraan waxaan waa minimum waxaan sheegayo waa wax un dadkii ay iska sheegayaan cunugayga waxaan ma qabo marka waxaasoo dhan waxay keenaysaa in ay ka dhacdo meeshii waxaan la yiraahdo wax kasta oo marka daahida meesha u socdo waa taas wax kasta oo daahida caruurtii ka go-an yihiin adiga weyn dhibaato ma qabtid caruurta macna waxaan la yiraahdo oo ku sheegay xamsa ugu horeyntii in dadaalka la bilaabo caruurtoo yaryar halkaasay aada u fiican tahay oo waalidkii isu yimaado marka kaashim ahaan waxaan xoogga saari doonaa aniga waana kusoo noqon doonaa in runtii aanan la fariisan waxyaabaha ugu badan oo waddan kasta oo jooga adduunyada waxay isku dayaan marka horeeto inay iyaku dhaqaalahooda ay koobaan marka waalid ahaan adigii haddii aadan qanacsanayn oo adigii aadan hormuud u ahayn ilmahaagii sidee ugu malaynaysaa marka inay dad kale ku caawinayaan ama adigii haddaa ku jirtid inaad ku qanci laadahay ama aad denial ku jirtid ama aad ka baqaysid in lagugu caayo oo ama bulshadii ay magacyo kuula baxdo magacyada in lagula baxaa ka wanaagsan intaad waqti ka lumin lahayd cunugaaga marka meesha ugu daran oo dadka badankooda aanay fahmaynin waxa waaye dadka inaad iska dhisto waxaa kaaga wanaagsan kun mar inaad cunugaagii dhisto waqtiga ay ka yar yihiin caruurta way ka wanaagsan tahay in la caawiyo taas waxaan u jeedaa waxa waaye maaha waxaa jira oo waqtiyada qaarkood in la sameeyo ay ku bannaan tahay waxaa jira mararka qaarkood inaad adiga noqotid advocate ama doodihii caruurtaada
marka adigii marka haddii aad tahay qof isdulmay ama shoog ku maqan ama xanaaqsan ama aan rabin inaad dadkii aad danta kaala dhexaysay oo siiba dhakhaatiirta waxba u arka inuu qofku u noqdo private uu ceshto arrimihiisa gaarka ah taas gooni waa anigu waxaan hadda xoogga saaray xamsa taa hore u sheegay xoogga waxaan sheegay dad waxaa jira xitaa dadkii caawin lahaa ka qarinaya astaamihii iyo wixii ay ku arkeen caruurtooda oo ay minimize garaynayaan oo ay leeyihiin maya wax walba okay taas macnahayda ma aha cunugii inuu okay ku noqonayo maadaama adiga tiro okay waxaad ka fogeynaysaa wax allaale wixii caawimaad lahaa uu heli lahaa ama qofkaas kula sheekeysanayo dhakhtarka maadaama waxaan ay psychiatric problem ay tahay oo aanan inta computer la geliyo aan la sheegayn oo la dhahayn sidan wax u dhaceen hadalkii qofkii laga rabay waa waalidkii baa laga rabaa inuu wax cad sheego waalidkii baa la rabaa qalin iyo book waxyaabaha aan rabaa maanta inaan si fiican u sheego waxa waaye waalidkii waxaa la rabaa in uu qoro wuxuu arko maalmahan xataa haddaa qoraalku kugu adag yahay isku day video recordinaa jira waqtiyada qaar markaad aad tegtid marka qofkan ku arkaya psychiatric ha noqdo ama dhakhtar ha noqdo waqtiga ugu badan uu ku hayo waa 20 daqiiqo kama badna marka 20kaas daqiiqo haddii aadan isa sii diyaarin oo aadan samaynin hab aad ku gudbiso waxaad isleedahay weliba su-aalo toosa lagu weydiin su-aalaha tooska haddaanan fahmin dadkeena waxyaaba waxaa jira oo aan ku arkay oo dhaqan naga ah ii jilci qofka xaqa ugu leedahay luqadda ruuxa ku hadlo haddaad isfahmi weydaan ma waxay ujeedaa arrintaas haddii aad sharxi weysid waxaa rabtay oo kaleeto xitaa waad jili kartaa oo saamkii cunuga samaynaad sheegaysaa waxyaaba waxaa jira marka oo aan isleeyahay caawa arrintan si fiican usii dabagal cabdiraxmaan adaan kugu soo wareejiyey xamse haddii wax ku daraay intaan xamse u gudbinin waxaan rabay su-aalaha xamse weydiiyey adigana inaan ku weydiiyo oo ah kasoo qaybgalayaasha waxaan markale u sheegayaa su-aalaha waa idin furi doonaa markii ay muxaadarada ay dhamaystaan hashim iyo xamse hashim waxaa aad uga hadashay kelmadan caanka ah ee denialka la yiraahdo xamse waa weydiiyey waxaan iri isbedelka denialka inaad ka guurto oo acceptance aad u guurto ama diididda aad diidaysa inaad aqbasho inaad kasoo guurto oo aad aqbasho markii dambe isbedelkaas xaguu kaga dhashay goormuu dhashay wuxuu noo sheegay in inta uusan talaabtaas qaadan ka hor uu cilmi baaris badan sameeyey markii dambena uu ku qancay adiga hashim ahaan wiilkaaga goormaad istiri allayleeyahay arrintan in loo kaba gashto waaye oo wax macnaa ma samaynayso in aan inkiro arrintan goormaad istiri aniga waxaan ku fiicnaa waagaas waxaan u shaqaynaya qolada caafimaadka waxaana ii furnaa inaan tala gaara weydiiyo dad badan oo markaas aan wada shaqaynayn waxa kaleeto oo aad mar walba ugu mahad celiyaa xaaskayga oo aad u maskax furnayd oo caawa dhaliisha aniga aan iska bilaabay aabayaasha waxaa ku dhaliilayaa oon aniga ugu horeeyo inay yara qabow yihiin taasna waa ma aqaan ma culture ka tahay ma waxay ka tahay ma garan karo taas marka taas waxay keentay active-nimada xaaskayga khayr allah siiye in aan wax walba oo markaas aan samayn karnay iyo cid walba oo aan tusaale kusoo qaata wiilkayga 8 sano isagoo jira waa diagnostic loo sameeyey ka hor wuxuu learning disability maadaama aan sidan hore u sheegay aysan ahayn inay kaa xirto iridda diagnostic ma hayo hadda learning disability-gaas marka inaan helno laga bilaabo pre-school setting ama intaan iskuolkaba la gaarin da-daas inaan helno dad markaas la shaqeeya wiilkeena mararka qaarkood marka
markaad arrintaas ku jirtid talooyinka waa muhiim. talooyinka qaarkood waxay kuula muuqdaan wax markaas adiga as leedahay war qofkan muxuu ka wadaa, laakiin ilaa aad dib u raacdo oo aad fahamtid sababta lagu leeyahay sidan samee, oo aan kasoo qaad markaad wax la baraayo caruurta. waxaan nagu yar Soomaali ahaan patience inaan sabirno, walow islaamnimada ina barayso inaan sabir yeelano. sabir la-aanta marka waxay keenaysaa markii lagu yiraahdo waxaan ku celceli la fariiso ilmahaaga intaasoo saacado waqti ilaa aad ka gaartid meeshaas ha ka bixin arrintan, ama maalin hebel waqti isku mid ah mar walba la samee arrintan. marka waxyaabahaas oo kaleeto haddaad dhayalsato lacala oo aadan u dhaga furnayn oo aad tiraahdo war gaaladan waxay wataan waa iyaku inay samaystaan shaqo oo cunugeyga shaqo ka dhiganayaan, waxyaabo oo markaas aan isleeyahay dadkii. iyo mid aada u muhiima, wiilkayga isagoo yar ilaa hadda markii uu iskuulka dhiganay, halkana muhiim waa inaan sheego, dad badanaa waxay ka gaabsadaan oo ay u diidaan caruurta inay iskuul geeyaan in basaska caruurta qaada disabled childrenka oo leh kalar ka duwan kalarada kale. meesha adduunyada ka joogtidba magaaladan aan joogo yellow buses la yirahdaa, waa basas yaryar oo guryaha soo istaaga. taas waxay keenaysaa waalidiinta qaarkood inay dhahaan maya anaa iskuulka geynayo cunugayga oo ma raba inuu yimaado baska gurigayga. mar qaarkoodna ay ka daahayaan, qaarkoodna ay ku qasbayaan dadkii iskuullada hayay ciyaalkooda la geeyo iskuul caadi ah oo aan waxba u tarin, oo inta qof kaleeto la yiraahdo la fariisa maanta oo dhan intaa waxaan ka cararaynaa qof hebel haashim gurigiisa baskii jaalahabaa soo hor istaagay. war hadduu jaallo soo hor istaagay, hadduu mid madow soo hor istaago, taas inay iga celiso waxyaabahan diidayo waxa waaye hadda badankeena caruurta intay yar yihiin meel waad fariisin kartaa, waad joogi kartaa, wax badan baa u sheegi kartaa, qolkan fariisaad dhihi kartaa. waxyaabaha aad ku sameynaysid waxa waaye waqti ay wax baran lahaayeen oo aada u muhiimaad ka luminaysaa. markay weynaadaan marka oo ay kula xoog noqdaan oo ay sidii loo dhaqmayay aadan barin, markaas waay marka ay tala faraha ka baxayso oo aad is arkaysaan adiga iyo cunugaagii. marka waxyaabaha aan haddaan raba inaan la hadlo qof waalida oo ilmo yar haysta 3 jir 4 jir 5 jir 10 jir intaba, war waqti kaama tegin. waxa ugu muhiimsan oo qof aad caruurtaada aad u tari kartid waxa waaye inaad meesha adiga aad joogtid. macalinka ugu weyn oo caruurtu yeelan karaan waa waalidiinta haddii ay gabaan ilmahooda si kastaba ha ku gabaane waxay noqonaysaa cid ay eersan doonaan hadhow ma leh. marka su-aashaadi markaan usoo laabto waa hadal banahay qabo haddaan aada u hadlo cabdiraxmaan. su-aashaadi markaan usoo laabto marka anigaaba daba joogi dadkan oo dhahay waa inaan helaa diagnostic oo mid walba uu ka cararayo dhahay maya sidanaan umalayn ilaa markii dambe 8 jir. taas marka waxay keenaysaa inaad acceptancega waxaad ku sheegtay inay aniga iisoo hormartay. ma aha kaliya aniga wax igu xiran, aniga waagaas aad bay shaqadayda u badnayd. ilmaha markay yar yihiin hooyada aad ula joogta. khayr allah siiye ismaaciil hooyadiis runtii waan isleeyahay meesha ugu wanaagsan oo aan tusaale usoo qaadi karo oo waalid ilmihiisa daba joogay oo wax badan baray. muhiimadan maaha waxbarashada iskuulka, dadka badankooda waxay geliyaan waxbarashada iskuulka arrin badan. waxbarashada iskuulka waxaa muhiim ah inaan lagu simin. waxaa muhiima waxaan afka qalaad lagu yaraa social skillska, inuu ilmihii isdabari karo, inuu ilmihii heli karo
la noolaan kara dadka inuu ilmihii mujtamaca markii banaanka u saartid uu fahmi karo in bay-ad kale uu ku jiro oo dadkii ama personal space ha noqoto ama magaalada sida loo socdo ha noqoto waxyaabo yaryar oo aan dhayarsanayno haddaad marka mar walba cunugii aad guriga ku haysid oo aad qarisid oo aadan isku dayin inaad arrimahaas oo dhan u samaysid waxay noqonaysaa hadhowtii arrin leh qofka Nokia 3.1 haysta fadlan codka daa xirto fiicnaan lahayd dhowr maran kaa xiray waad furtay marka noo dulqaata wax yar codka ha idin xirnaada insha allah marka waxaan ku jiray oo aan sheegay ugu muhiimsanayd waxa waaye arrintan ah waajibka saaran aabayaasha ka kaca hurdada layback ha noqonina basa gadaal ha ka raacina ha noqonina dad un iyaku ay gabadhii jiido oo ay maalin walba ay hadday noqonayso dhakhtar cusub oo loo tagaayo ama psychiatry cusub oo lasoo arkay initiativeska inay gabdhihii un qaataan oo ay raggii ay ka mashquulaan arrinta taas waayo aniga waxaan boorinaya waayo cabdiraxmaan waad mahadsantahay Hashim aad baad mahadsan tahay weli wax yar idul qaata kasoo qaybgalayaasha su'aalaha idin furi doonaa waxaan qiyaasayaa in su'aalo badan aad haysaan waad weydiin doontaan labadan xeel dheer marka waxaan rabaa hadda Hamza inaan ku hormaro Hashimna waa ku soo xigsanaa Hamza adigu waxaad ka tirsan tahay hay'ad la yiraahdo Fathers Network maxay tahay maxaa loo aasaasay maxaad qabataan السلام عليكم هذا سي في عمليه مقلورت si fiican اوكي actually fathers network waxa weeyaan waxaan tijaabinay inaan isku keeno aabayaasha oo ku jira baxarada kids with special needs just for bonding and events ka wada qaadano baxarada inaan meelahaas ku raacano inaan advice siino inaan wax kala barano basically bay ahayd marka hadda asaaskii baan ku jirnaa insha Allah marka waxaan rabay inaan adigu aabayaasha magaalada ila jooga then slowly by slowly meelaha kala jooga inaan hadda beryahan the world waxa weeyaan waa through the internet halkaas la iska xiriiri kara marka waxaan tijaabinaa insha Allah hopefully in the next before the end of the year inaan a database sameeyo aabayaasha oo dhan ku jiraan su'aalo hadday qabaan hadday information qabaan halkaas ay ka sheegareyn karaan insha Allah that's basically what it is marka cidii doonaysa inay idinla soo xiriirto aday kula soo xiriiri kartaa marka waa saasay wixii akhbaaraad ku heli karaan soo ma insha Allah waayahay qofkii u baahan marka Hamza Maxamed contactiisa insha Allah annaga noo soo sheega annaga siin doono Hashim adigana sidoo kale waxaad ka tirsan tahay hay'ad la yiraahdo daryeel autism waa laba eray oo macno weyn ku fadhiya daryeel eray fiican Soomaali ah weeye daryeel autism waa waxaan maanta ka hadlayno ama meeshan u soconno in maaragtay culays la saaro weeye hay'adaasay ku dhalatay saldhigeed waa xagee maxay qabataa bal xogaa faahfaahin kooban naga siin runtii hay-adda waxyaabaha ugu muhiimsan waxa waaye waxaan nagu dhaliyey taas khayr allah siiye xaaskayga oo runtii xoog badan saartay talooyinka markaad sida uu hadda Xamse sheegay aad mar walba dadkii si gaar ah aad ugu sheegaysid waxaad noqonaysaa un qof telefonka markii ay dhib dhacdo un la soo waco marka hay-adda macnaheeda waxaan loo sameeyey ugu badnayd waxaa proactive inaad adigii aad problemadii aad kasii hormarto ka Hashim ahaan aniga runtii wax badanna waan sheegay problemka wiilkayga inta badan waxaan ku samayn jiray privately anoo aan isticmaalayo wax allaala wixii halkaas yaala haddana dadka lama qaybsan jirin taas marka waxay noqotay xoogaa yar arrin aad ay xaaskayga u gujisay tir war adiga maxaad arrimahan
mar walba aadan u sheegayn si dadka kaleeto ay uga bartaan marka inaan banaanka aan imaado haashim ahaan oo aan ururkan iyo arrimihiisa aan kusoo biiro oo bilowgiisa ay gabadha xaaskayga ay lahayd fikirkiisa waxay igu khasabtay arrin laba samar ka hor dhacday oo runtii intaanan hadalka ka bixin xamsana aan weydiinayo inuu ku daro oo ay muhiim tahay waalidiin aabbayaasha ilmaha yaryar haysta stage waxaa jira markaad soo gaartid ay caruurta ay u wareerayaan waxa waaye waa markii ay iskuullada hoose ee dugsiga sare ay dhammeeyaan oo arrintoodii ay isbedesho oo ay noqdaan dad waaweyn isbedelkaas oo hormoonada ha noqoto waxyaabihii ay samayn jireen oo dhan waddan kastoo aada joogtidna ha isku halaynin systemka inuu waxaasoo dhan kuu toosiyo waa wax la yiraahdo transition marka Ismaaciil waxaa ka halaabay transitionkii oo dugsigii sare ilaa college-kii taas waxay keentay marka inaan dhib badan mudano oo ay laga dhaadhicin waayo Ismaaciil iskuulkaagii wuu dhammaaday college waad aadaysaa college-kii markuu aadayna uu kala kulmi waayey wixii la filayay oo kolleejyada qaarkood waxyaabo aanay samayn karin intay ballan qaadaan baa hadhowtii aanay samayn karin taas marka waxay keentay in caruurta sidaan sheegay stagekaas transitionka markay joogaan dhib badan bay la kulmaan dhibtaas marka wuxuu i baray ka haashim ahaan aniga markaan isku soo jeesto in samarkii aan lahaa u laba jibaarmo in aan ka hormariyo wax kastoo noloshayda ku saabsan arrinta ku saabsan Ismaaciil in aan arrintaas iyo aan u guntado looga mar sababta keenaysana aan idiin sheego waxyaabaha waddan kastoo aad joogtid ay samaynayaan dadka Hashim, Ralaha, unmute yourself, please. أنا سأقرأ بحرية. Ralaha, resource-ga inay yareeyaan waxay isku dayayaan marka in ay kugu khasbaan wax aan u qalmin caruurtaada marka taas way ku soo mari doontaa haddii aadan marka diyaar u ahayn oo aadan cilmigeeda lahayn oo aadan knowledge-geeda lahayn marka daryeel haddaan soo gaabiyo sanadkii iyo 2 sano iyo barkii ugu dambeysay ee aadka u adkaa transitionka Ismaaciil wuxuu ii keenay inaan wax allaale wixii cilmi ahaa oo aan soo bartay iyo meelihii aan madaxyada ku soo dhuftay oo dhan si ay dadku uga badbaadaan taas oo ay baraarugaan waqti horena sameeyaan wax allaale wixii caruurtooda ku saabsanay sababtan su'aashan transitionkan meesha usoo geliyay waxa waaye aniga iyo Xamsaba waa arrimo ay muhiim tahay inaan dadka kala hadalno Xamsa bal transitionkii Cabdiraxmaan aan ka yara xoogay transitionkii wiilkaaga bal noo sheeg arrimaha ku saabsan maxaase aan aabayaasha la qaybsan karnaa Actually was su'aal aad u muhiim ah oo a very important issue oo laga maxarada orta transitionka wax weeyaan waa it's a process la waxay u baahan tahay dulqaad aad u badan because waxa weeyaan was exactly Harun was exactly like Ismail maxarada everything fell off in place because waxaan ku jirna always trying to find the right school setting where he's going to fit in laakiin maxarada hadda waxay ku xidhan tahay markaad parents tahay waxay noqonaysaa you have to fight through the process the meesha joogno hadda Mareykan ama dalalka kale waxa weeyaan a lot of resources ayaa meesha jira iyagu waxay ugu riixayaan iyaga wax ugu fudud marka wax laga yaabaa iskuulo aan fiicnayn inay kugu diraan oo don't give you the resources you need marka waxay noqotay transitionkii weera adkaatay because almost 1 year ayaan schoolkii ka reebnay aan soo raadinay
meel isaga anfaci karo marka waxay noqotay always you're trying to find resources researchkii baan ku jirnay marka alxamdulillah markii dambe waynoo suurto gashay waxaan helnay school isaga u fiican macallimiin oo autism si fiican u fahmaya oo special needs research in general si fiican u fahmaya marka alxamdulillah lakin transitionka is always a struggle walaal lakin dad ba hadda messages oo diray waxay yiraahdeen they're trying to join in lakin waxay yiraahdeen people are trying to join but no one is letting them in abdi markay soo galaan baan eegaya oo soo daraya marka insha Allah waxaan rajaynayaa in ay soo wada gali doonaan hadda insha Allah marka ma Hashim adana waxa kale rabinaan ku korbiyo which is very important waxa weeyaan markay noqoto autism in general it's a huge spectrum waxa weeyaan waxa aniga anfacay laga yaaba inuu Hashim anfaci kari waayo marka we have to understand waxa weeyaan it doesn't one shoe fits all maaha waxay u baahan tahay every child is unique in their own way marka laftooda waxay ku xiran tahay aabayaasha iyo hooyayaasha iyo the parents ka waalidka inay iyagu ilmihii si fiican u understand garayaan his needs Hamza, unmute yourself please. Okay, sorry about that. Marka waxaweyn it's very very important it doesn't fit all of them marka aniga wax anfacay laga yaabo qof kale inuu anfaci waayo laakiin wax badan ka dadkeena waxaan ku we believe that yarkaaga autism maxaad u qabatay maxaa caawiye marka waxaweyn waa trial badanka waa trial and error iyo waxa kale muhiimka rabinaan ku daro adana which is very important dadkeena especially our community waxaan ku ogaaday there's a lot of myth or I don't know how you say it in Somali the mahara there's just a lot of misconception iyagu isku ababuliyan another for example rumor goes around wa kuleeyihiin hebel ilmihiisa wuxuu geeyay Soomaaliya caana geeba la siiyay ama waxan ba lagu sameeyay hadda kaale arag yarku waa biririx horta waadkaas boqol ba maqlay waxa ku leeyahay waa biririx wax hadda yarkii waa okay wayaan waxaan ku yiri marka anigu waxaan ku yiraahdaa dadka please let's be very very careful waxaan sheegayna because marabteed ina dadka siisid maharada you don't want to give them false hope because meeshii qarash bagelaysa waxa gelaya arimo badan oo dadkii maxarada niyadiibada waxa ka dhigaysa wixii aad u fudeynaysa you're trying to find them shortcuts and I tell people when it comes to autism there are no shortcuts you have to put in the time marka waxaad arkaysa qof ba ku leeyahay ma wiilkaaga ma geysay India wiilkaaga meeshan ma geysay boqolaal wax bad maqli doonta laakiin walaalayaal waxa weeyaan waqti iyo therapy iyo si fiican adigu research u sameeysid waxa ilmahaaga anfacaya wax ka weyn ma jiraan laakiin hadaladan la sheegayo oo Soomaaliban wiilkii la geeyay caana geel wala siiyay kaale arag yarkiisu dulqoday waa biririx u fiicnaaday waxaas walaalo ma jiraan waxba kama jiraan waqti bay u baahan tahay dadaal bay u baahan tahay iyo dulqaadi aad u badan bay u baahan tahay laakiin shortcut haddii aad rabtaan oo shortcut haddii la raadinayo waxay noqonaysaa wiilkaagii bay ka dhiman tahay arrintaas you're putting him in a more you're putting him in a bind camal marka intaas waa very muhiim aan rabay inaan dadka ogaado horta maxarada wax kasta ilaahay dawooyin haddii noqoto wax kasta maxarada caafimaad haddii noqoto ilaahay ba keena laakiin muhiimka waxa weeyaan dadaal dulqaad iyo maxarada adigu inaad waqti gelisid maxarada ilmahaaga aad ma sata afkaada ana lagu qabay wax yar hadan waxa iga fakanayo xogaa yar fikirkii
xamse wuxuu ku sheegay af ingiriis waxaan autism spectrum spectrumka aad u balaaran yahay. qaar baa hadla, qaar baan hadlin, qaar baa ka maskax badan kuwa caadiga intaba. markii lagu dhiibo wax qofkan u wanaagsan qofkan u wanaagsanayn, waxaa kaloo wehliya cudurro kaleeto oo autismka ku dhex jira. waxaa ka mid ah epilepsy baa marmar qaarkood raaca oo caruurta ay qaba. waxaa ka mid ah ADHD oo ah hyperactive. waxyaabahaas oo dhan waa unique oo autismka ay la raacaan inta badan. laakiin siduu xamse sheegay, haddii aad adiga aadan baran cunugaaga, haddii aadan adiga fahmin, ilaa ma jiro qof kaa badiya caruurtaadii. haddii aadan qalin iyo warqad isdaba wadin oo aadan minute kasta wixii dhacaya waqtiyaday dhacayaan maxaa ka horreeyay waxaas. qof baa ku dhacay cunugii wuu uyay darbigu madaxa ku dhufsanaya maanta oo dhan. okay, taas adiga waxaad ii sheegaysaa kaliya actionkii dhacay maxaa ka horreeyay oo actionkaas sababay inaad fahamto. isku day ma dharka qaar oo aad soo xirataa dhibaaya, ma waxaa dhibaaya caruurta kale markay qaylinaysa waxay ku leeyihiin caruurta dhaguu qabsaday. waxaan rabaa marka waalidkii inuu asaga noqdo researcher ama qof isagii gacantiisa furan tahay oo isku dayaya wax walba uu arko inuu u helo ogaadana waxa sababay, maxay ku socotaa, maxaa keenay. waxaasoo dhan dadaalka iyo sabarka la sheegayo. shortcutkan oo ah hebel baa la geeyey meel waa fiicnaaday, taas intii la ogyahay hadda autismka waxaa la samayn karaa in lala dadaalo oo la siiyo caruurtii hab ay nolosheeda ku dabaran karaan oo weyn. marka waa intaa waxaan ka hadlaya. لكن it doesn't accumulate to 8 points. It doesn't say I found the syslog and this. walaalka mike-isu furan yahay fadlan daasir miyaa ka xiran. marka hashim mike-gaada furo walaal. waxaan rabay kaliya inaan ku daro hebel baa la geeyey caruurtiisa. hadda maalmahaas waxaa laga sheekeynaya dad dhahaya india la geenaya oo therapy oo dhuuxa la shubaya, dhuuxa la bedelaya. walaalayaal waqti iyo lacag intaad ku dhumin lahaydeen terabiyaal aan jirin, waxaad lacagtiina iyo waqtigiina gelisaan. kow, haddaad u baahan tihiin private speech therapist, waxyaabaha runta ah haddaad u baahan tahay wax shaqeeyey, lacagtiina iyo waqtigiina geliya, siiba waqtigiina. sabarka uu sheegay xamse inaad kun jibaarato isku day, siiba markay caruurtaada ay soo waaweynaanayaan yaan lagu daynin gabdhaha. waan ka baxay raalli ahaa cabdiraxmaan. aad baa u mahadsan tahay. way dhacdaa oo haddii aad social media laftirkeeda aad gasho, soomaali keliya maaha, informationna ciidaas ka badana dhex socda oo ah caruurta waxaasaa lagu sameeya way fiicnaanayaan. iyo autismka waa qofka maskaxdiisa u shaqaynaysa ayaa si xoogaa ka yara gedisan dadka kaleeta u shaqaynaysa. lamuye cudur qofka ku dhaca oo daawo la siiyo uu bogsada maaha. marka taas laftirkeeda in la ogaado waa muhiim. waxaan u malaynayaa hadda waa 9:00 saacadda UK. waxaa la soo gaaray waqtigii aan su'aalaha u furo lahayn kasoo qaybgalayaasheena. aad iyo aad idinka mahadnaqayaa sabarka aad yeelateen iyo inta aad na sugayseenba. alxamdulilah 32 qof ayaa hadda toos ugu jira. marba tirada kore u kacaysa marna hoos u dhacaysa. waa wax wanaagsan. barnaamijkan oo mataqaanaa aan soo habaynayno waxaan soo gelin doonaa meelaha maaragtay oo Andrel Autism iyo Fathers Network ay dadka kula xiriiraan. barnaamijka intii Hashim iyo Hamza ay hadlayeen iyaga warbixintooda waa duubaynay. hadda waxaan joojinaynaa duubitaanka. marka qof walba si xornimo ah aad u hadli kartaa oo su'aashaad rabtaa waxay weydiin kartaa xeer dheerayaasheen. aad baa u mahadsan tihiin. qofka raba inuu hadla fadlan